maamul ahaanteeni what do you say Mackenzie? ما تقع قرية وثاني واحد daba jeexyo sabadno caaka intaasay wateen hubka fudfuda gacanta lagu qaatay wateen nimanka 7 BKM AK-47 they had stuff that they able to carry highway oh my god yeah this is just yeah he's just talking waa ku maqlaa abaayo marka waxaan rabnaa waa wada shaqaynaynaa waxaan la malayga biyuhu ku weyn yahay shabaabna rabshadu ku weyn yahay shabaab meel ay rabsho ka jirto ayuu ummadda ku soo dhex dhuumanaa okay he says okay I'm going to give you a quote a fish is only big when he has the water and Al-Shabaab is only Al-Shabaab when they have a cover he said this is the cover marka Al-Shabaab can only do their operation with something like this dhibaatada ugu badan annagana haystaa waxay tahay nimanka caleemoodka halkoo iyo labada oo rurfiyaana warshay sheegay shabaab waa laga helaa laakiin ciidan rigli ma qabaan laakiin nimankan heer gaal jecel waxay heli karaan ciidan kun ama ku dhawaad oo ciidan shabaab ay heli karaan gaal jecel can really bring the 1,000 almost 1,000 members of gaal jecel shabaab but Shanta Alain you might find 1 or 2 or 3 or 4 but gaal jecel you can find a whole military battalion from Al-Shabaab that is gaal jecel that will help gaal jecel sidaa daraadeedii eeriyadiina seef ka dhigta cid alle ciddii maleeshiya ha ahaato ama aawe wixii rabta ha ahaato eeriyada seef ka dhigta ka ceyriya eeriyadiina oo dhan si aan loo soo gabanin so now business is back in BMA he said everything is BMA in the middle and you got 2 tribes that live both of them BMA have fighting it one tribe mostly Al-Shabaab and he said that's like this kuwa jiirada kaba hereg fadhiyo isbaarada u taal waa kuwii dad masaakiin ah 8 qofood dhameeyeen waay soo ma ogid kuwa fadhiyo he said that's a long time ago 0 Cup Hirik all back in the same militia group around here so everything now is going to evolve to BMA all right marka nimankaas oo baleeshida beeraha ee meesha iska bixiyeen naga dheeraada dheh sababtoo ah another group leaders here they're going to get people and we're in the middle and it's up to you he said what you guys going to do because they're going to definitely have their people have their checkpoints everything now well the BMA I had the feeling kakashidanya he said the latest movie is on in BMA marka waxaan ka rabaa nimanka jiirka weerig fadhiyaan meesha laga ceyriyo oo si meesha aan loogu soo gabanin haddii kale ninka dadkiisa la dhameeyay meesha waa imaana sabana la isku garaaca sabankii ayaga lagu soo tooro xaqiina u soo dhaca whatever is going to be fired each other Shanta Alain will come after them Jalgal will come after Shanta Alain and BMA is in the middle we're in the middle so this is how marka sidaa daraadeed waxaa la shar meeshay kaaga dhowda la iska dheereeyaa nimankaas iska dheereeya his advice is that we should eliminate no one get close to our base okay close inshallah marka wax kasta na soo wac walaalo naga soo socodsiiyahay adila noo joogtid inshallah jazakallahu khayr inshallah